Qaar ka mid ah howlwadeennada Jaamacadda Badda Cas ee magaalada Boosaaso oo horkacaya hormuudka kulliyadda waxbarashada Ustaad Siciid Warsame ayaa macallimiinta dugsiga sare ee Sheekh Cabdalle Ibraahim degmada Ufayn u qabtay tababar ku saabsan habbarista wanaagsan iyo weliba qiimeynta ardayga. Tababarkan oo ay jeedinayeen barayaasha kala ah Ustaad Cali Cabdi Cali iyo Cabdirasaaq Axmed Cali ayaa socday muddo hal maalin ah, waxaana kasoo qayb galay marti sharaf meeqaamkoodu sarreeyo. Ugu horreynba waxaa goobta hadallo kooban ka jeediyay gudoomiyaha waxbarashada degmada Ufayn Sheekh Abshir Jaamac Saalax Sheekh Jaabir iyo weliba maamulaha dugsiga sare ee Sheekh Cabdalle Ibraahim Ustaad Maxamuud Daahir Cali iyagoo soo dhaweeyay wafdiga uga yimid jaamacadda isla markaasina ku dheeraaday muhiimadda uu leeyahay tababarkani. aad baan ugu faraxsanahay maanta tababarkan waxaan rajeynayaa inaan ka faa'iideysan doono insha Allah taala dhamaanteen maanta aynu ka faa'iideysano waa waxa maskaxda macallin ku jira oo uu ardaydiisa gelinayo qaabka u gelin lahaa waa iska buuxdaa waxa laga qaar aan dhameystirin oo qaabka u dhameystir ka maqnaato marka la isticaadeynayo anagu horta anu macallimiinta burburkaan ahaa iyo macallimiintii hore dawladda tababartay marka la isticaadey waxay oran jireen way iftiijin ma taqaan kan ma taqaan xoolo soo kuwa kale xoolo loogu xifaltay jiray isku soo duuduub waxa way maanta waxaan u joognaa inaynu duruusta ka faa'iideysan waalaheena socdaalka dheer inoo soo galay saddex dakatirada oo barakallahu fiikum madaxa hormuudka ee qaybta kulliyadda tarbiyada دكتوركا لوان دكتور ويونا معلمين تا جامعة دا تدارك نوصل بس سفر نوصل قلي مهمة دا أي فريق يقولون تاسع كأوغانيسان مهمة دا وتبارك الولية هاي ولي با أنت لو جود بحي وما ملك سكول كنا وقاد رجاش قي أنا قرنتي بوسبارك كل الناس في عم برنامج مدبر مسكلة سعودي وأنا حيلا قاد لو جف يسوي حلا جاي با وحلا يرى هذا مهما جرته waxa yajidu min an-nahr ma la yajidu min al-bahr wabiga waxa laga helaa xabada laga helin marka waxa dhici kada maalinkaas inay ku noqoto fursad weyn waad wax badan ka faa'iideysto ujeedkiisuna waxay tahay kow in kor loo qaado wacyiga macallimiinta laguna tababaro habdhigista wanaagsan iyo qiimeynta ardayga labada cashar buu ka koobnaan doonaa insha Allah waxaa isla soo wada agaasimay maamulka dugsiga sare Cabdalle Ibraahim iyo maamulka jaamacadda Badda Cas gaar ahaan xafiiska educationka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waan soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waa deegaankiini waa degmadiini soo dhawaada leenahay madaxa xafiiska doorashooyinka degmada Ufayn mudane Cabdiraxmaan Daahir Cali oo goobta hadallo ka jeediyay ayaa soo dhaweeyay wafdiga isla markaasina macallimiinta kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan tababarka waayo kulliyadda education waa kulliyadda kaliya la dagaalanta ama qofka ama ardayga kala dagaalamaysa jahliga kulliyadani waa kulliyad sharaf badan oo qiimo leh ixtiraam leh waana kulliyadda laga baxo kulliyadda ugu ixtiraam badan marka dhammaan macallimiinta waxaan ku boorin lahaa yaan laga niyad jabin haddaysan bushqaad xoog leh aysan lahayn oo mushaharkeedu uu yar yahay waxaa la yidhaahdaa maal yar iimaan baa lagu kabaa marka waxaa ka qiimo badan hal arday aada xarf barto waxaan ku dhiirigelinayaa inaad halkaas dadaalka ka wadaan qiimaha uu macallinku leeyahayna dee hore waa loo sheegay waxa la kaada almucallimu an yakuuna rasuula macallinku wuxuu ku sigtay inuu rasuul noqdo marka qiimo sare baa la geeyey inaad qiimahaas ay kulliyaddaasi leedahay aad niyadda ku haysaan baa muhiima hormuudka kulliyadda waxbarashada jaamacadda Badda Cas Ustaad Siciid Warsame ayaa isaguna dhankiisa ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay isagoo dhanka kale tibaaxay muhiimadda uu leeyahay tababarkani kale xirfadii iyo aqoontii labaduba wax weeyaan ay u dhisan yihiin si marka loo soo saaro arday tayo leh dabcan sharaf ay noo tahay barnaamijkan dabcan wuxuu noo socon doonaa sidii loo tilmaamay maanta oo dabcan maadaama labada lecture aan kala qaadan doono kabacdina insha Allah waxaan loo jiri doonaa inaan dabcan wax weeyaan certificate aan bixin doono oo siin doono yani wax cid kasta oo dabcan ka qayb qaadatay oo ka faa'iiday barnaamijkan inaan siin doono sidoo kale waxa weeye dabcan hada sharaf oo cadeynaysa inuu mushaarakeeyo oo ka qayb qaatay tababarkan insha Allah waxaan rajeynaa dabcan waxaan rajeyn doonaa
inaad wax badan ka faa'iidi doontaan waana mahadsantihiin salaam gunaanadka tababarka waxaa hadalka qaatay beeldaaje cali beeldaaje faarax oo ku dheeraaday muhiimadda waxbarashadu leedahay isagoo dhanka kale ku baraarujiyey macallimiinta inay ka miro dhaliyaan tababarkan. waxaan mahad gaar u celinayaa jaamacadda badda cas soo qaban qaabisay seminaarka kan waxbarashada wax weyn ka taraya khaas ahaan waxyaabaha qofku uu xirfadda u leeyahay oo macallinnimada ah sidii cilmi ahaan uu u isticmaali lahaa meeshuu ka abbaari lahaa wixii la soo gudboonaada ama waxbarashada dhexdeeda ama waxbarashada gaarkeeda ama ardayga ama maamulaha ama macallin kale iyo wixii waxbarashada la xiriira oo subjectiga la xiriiraba sidee qofku u abbaari lahaa marka hore inaanu maskaxdiisa ka baarine uu isticmaalo instructionka loo dejiyey oo ku fiican inuu ogaado. anigu dee waxbarashada la foole waxaan ka baxay 1979 42 sano laga jooga maasha allah si fiican baa loo waxbarashada educationku wuxuu ahaa wax compulsory ah nin kasta maado kasta ha qaato major iyo minor kasta ha qaato laakiin educationku waxbarashada gaar baa loo baran jiray oo waxyaabaha oo khasab ku ah ay ka mid ahaan jireen. gabagabadii tababarka waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey barayaashii ka qayb galay tababarka iyadoo dhanka kale maamulka dugsiga sare lagu wareejiyey agab waxbarasho.